kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaal nooca ridada dheer ah oo awood u leh inuu ku dhufto inta badan Japan sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Isniintii. Dabayaaqadii isbuucan ayaa la arkay gantaal la socda masaafo dhan ilaa 1500 oo kiiloomitir sida ay sheegtay wakaaladda lagu magacaabo KCNA. Tijaabadan ma jabinayso qaraarka golaha amniga ee qaramada midoobe ee Kuuriyada Waqooyi ay ku mutaysatay cunaqabataynta adag in markaa lagu soo rogo, laakiin waxa ay muujinaysaa baa la yiri in wadanku wali awood u leeyahay in uu soo saaro hub iyadoo ay jirto in dalkaasi ay soo foosartay cunto yaraan iyo dhibaato dhaqaale oo aad u fara badan. Tijaabada gantaalkan oo ah nooca cruise-ka ah ayaa muujinaysa in ahmiyadda istiraatiijiyadeed oo wax ku oola markaa ay macnaheedu tahay in si kalsooni leh loo sugo amniga dowladda markaa ama dowladeena baa lagu yiri oo si xoog leh loo xakameeyo dhaqdhaqaaqyada military xooga cadawga ayaa lagu yiri bayaan lagu baahiyay wakaaladda wararka ee KCNA. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in tijaabadan ay muujinayso in Kuuriyada Waqooyi ay sii wado diiradana ay saarayso horumarinta barnaamijkeeda military iyo halistooda ku wajahan dariskooda iyo guud ahaanba beesha caalamka. Waxay saraakiisha militariga Mareykanka intaasi ku dareen in ay ka go'an tahay in ay difaacaan xulafadooda Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale Japan. Gantaalka noocan ah qayb kama ahayn cunaqabataynta golaha ammaanka ee qaramada midoobe taas oo loogu talagalay in lagu xakameeyo barnaamijka nuclear-ka ee Kuuriyada Waqooyi. Qaar kamid ah khubarada ayaa u arka in tani ay tahay dandaansi heer hoose ah oo markaa ka yimid dhanka xukuumadda Pyongyang lagana yaabo in ay tijaabinayso bal sida looga falceliyo. Marka laga hadlo xaqiiqada tijaabadani ma noqon mid ku soo baxa ciwaanada ugu sareeya ee dalka markaa Kuuriyada Koonfureed wargeysadooda, mana aysan noqon kuwa qabsada bogaga hore ee wargeysada dowladda Kuuriyada Waqooyi laftigeeda. Muhiimadu se waxa ay tahay in Kuuriyada Waqooyi ay mar kale cadeysanayso in ay markaa horumarin karto hub cusub oo halis ah iyadoo ay markaa saaran tahay cunaqabataynta adag ee dhanka caalamka. Gantaaladan oo nooca cruise-ka ah ayaa kuwa markaa jawi hoose ku duula oo ay adag tahay in la ogaado gabi ahaanba, jarayana masaafo dhan 1500 oo kiiloomitir isla markaana gaari kara qaybo ka badan oo markaa kamid ah dalka Japan iyo sidoo kale dalka kale ee dariska la ah Kuuriyada Koonfureed. Warbaahinta dowladdu waxay kale ku tilmaamaysaa gantaaladan kuwa istiraatiiji ah oo sida caadiga ah macnaheedu yahay in talisku uu doonayo in uu ku rakibo madaxyada nuclear-ka. Pyongyang ayaa laga yaabaa in ay aamusnayd tan iyo markii wada hadaladii Donald Trump iyo Kim Jong Un ay markaa ku burbureen dalka Vietnam sanadkii 2019, balse taasi macnaheedu ma ahan in aysan ku mashquulsanayn horumarinta hubkeeda.